dhegaystayaal waa habeen jimcaha bisha May ee sanadka 2024-kana waa 3 waxaadna haatan naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boggeena voasomali.com. idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mida dunida oo maanta laga xusayo maalinta xorriyadda saxaafadda oo sannadkan halkudhig looga dhigay soo tebinta wararka deegaanka la xiriira. aadaan ugu baraarugsannahay ururkeenna bosage marka la dhaho waxaana naga caawiya arrimahan ansomta badana naga caawiya. waxaan aad maartay tababaro waxaan bixinaa oo la xiriira dhinaca deegaanka iyo wariyaasha iyo inay ka warramaan arrimaha deegaanka cimilada ka hadlaan ilniina ka hadlaan. waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno dhallinyarada soomaalida ee jeelasha ku jira dalalka Yurub. dhibaatada ugu weynayna haysataa waxa weeyaan mukhaadaraadka ay carruurta iibiyaan. horta muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan arrimaha ay sheegteen waa wada jiraan. arrinta ugu horeysa waxa weeyaan waa dhaqanka laftiisii oo dhaqankii aynu carruurteenna ku abaabin jirnay markii ay joogeen waddankii iyo dhaqanka halkan markay waalidku yimaadeen ee halkan yimaadaan oo aada u kala fog. laakiin waxaan rabaa inaan yar faahfaahiyo keliya dhinaca qaabka iskuulka naftiisu iskoolada naftoodu ay u arkaan ilmaha madow. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii. kooxda xamaas ayaa sheegtay in wafdu ay u dirayso dalkaasi masar si wada hadallo xabajoojin ah loo sii ambaqaado, taasi oo calaamad cusub u ah iskudayga dhexdhexaadayaasha caalamiga ah ee lagu doonayo markaas in lagu gaaro heshiis dhex mara Israa'iil iyo kooxda xamaas oo lagu soo afjarayo dagaalka. dhexdhexaadayaasha masar iyo maraykanka ayaa waxa ay muujinayeen calaamado tanasul ah maalmihii lasoo dhaafay, laakiin fursadaha heshiiska ayaa waxaa weli dhex taalla su-aasha muhiimka ah ee ah in Israa'iil ay aqbali doonto joojinta dagaalka iyadoo aan markaasi la gaarin hadafkeeda ay sheegtay ee ah burburinta xamaas. saamaynta ku jirta wadahadalka xabajoojinta ayaa waxaa lagu caddeeyey warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobay oo lagu sheegay in haddii dagaalka Israa'iil iyo xamaas uu joogsado maanta weli ay qaadan doonto ilaa iyo 2040 in dib loo dhiso dhammaan guryihii ku burburay ku dhowaad 7 bilood ee duqeynaha iyo weerarada dhulka ee Israa'iil ay ku hayso Gaza, waxaana ay ka digtay qaramada midoobay in waxyeelidda dhaqaaluhu ay dib u dhigi doonto horumarka jiilasha ayna markaasi ka sii dari doonto bil walba ee dagaalku uu sii socdo. turkiga ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu joojinayo dhammaan noocyada ganacsi ee kala dhexeeya Israa'iil ilaa Israa'iil ay ka ogolaato in gargaarka uu si aan caqabad lahayn uu u galo Gaza inta uu socdo dagaalka ka dhanka ah ee xamaas ee Gaza. wasaaradda ganacsiga ee dalkaasi turkiga ayaa waxay sheegtay in la hakiyey dhoofinta iyo soo dejinta badeecooyinka Israa'iil, iyadoo intaasna ku dartay in turkigu uu markaasi hirgelin doono tallaabooyinkan cusub. wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Katz ayaa hore waxa uu ugu caddeeyey madaxweynaha turkiga Rajab Tayyip Erdogan in uu jebiyey heshiisyadii u dhexeeyey labada dal, isagoo joojinaya dhoofinta iyo soo dejinta badeecadaha Israa'iil. tallaabadani ayaa ah dhacdadii ugu dambeysay ee sii xumaysay xiriirka labada dhinac kadib markii turkiga oo ka mid a dhowr waddan oo muslim ah oo markaasi aqoonsan Israa'iil uu xadiday ganacsigii kala dhexeeya dalkaasi bishii Abriil. Gaza ayaa waxaa ka taagan dhibaato bini'aadminimo oo ka dhalatay dagaalka tan iyo 7 bishii Oktoobar socday, iyadoo qaramada midoobay iyo hay-adaha gargaarka ay ka digeen macluul soo foole.
xamaas ayaa waxay bogaadisay tallaabada turkiga uu ku joojinayo xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya israa'iil. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa waxaa maanta ay sheegtay in ciidamadeeda difaaca cirka ay burburiyeen 6 dayuuradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo Ukraine ay soo dirtay xalay saqdii dhexe. 5 ka mid a dayuuradahaasi aan duuliyaha lahayn ayaa waxaa lagu soo riday gobolka la yidhaahdo Belgorod ee xuduudda la leh Ukraine iyo mid lagu soo riday gacanka Crimea sida ay wasaaradda gaashaandhigga ay ku sheegtay habka fariimaha ee Telegram. wasaaraddu ma aysan bixinin wax faahfaahina oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. wakaaladda wararka ee Reuters ayaanan markiiba xaqiijin karin hadalkaasi wasaaradda difaaca ee ruushka. shil bas oo ka dhacay waqooyiga Bakistan maanta ayaa kadib markii darawalkii waday uu xakameyn waayey waxaa ku dhintay ugu yaraan 15 qof, in ka badan 20 kalena way ku dhaawacmeen sida uu sheegay booliiska dalkaasi. baskaasi ayaa waxa uu ku socday Hunza iyada oo uu marayay waddo ku taala degmada Gilgit Baltistan ee Damer markii uu shilku dhacay sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan booliiska. waddada buuraleyda ah ee basku uu marayay ayaa waxay isku xirtaa Bakistan iyo Shiinaha. Hunza waa goob dalxiis oo caan ah gaar ahaana bilaha kulul. ra-iisul wasaare Shehbaz Sharif iyo wasiirka arrimaha gudaha Muxsin Naqvi ayaa waxa ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin shilkaasi, iyagoo kuwa dhaawacmana eebba uga baryay inuu caafimaad degdega siiyo. warkeena dhegeystayaal waa naga intaas. halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee Washington. aan ku bilownay maanta waa 3 bisha May 2024. maanta oo kale sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta xorriyadda saxaafadda. maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka ee uu aasaasay golaha loo dhan yahay qaramada midoobay sanadkii 1993 ayaa halku dhiggeedu yahay sanadkan saxaafad loogu talagalay meelaha dhulka, waxaana loo asteeyey halku dhigga saxaafadda iyo ka hadalka arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka geeska Afrika ee saameynta adag ay ku yeeshaan arrimaha cimilada. haddaba sidee ayay saxaafadda Soomaaliya u tabisaa arrimaha deegaanka? wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa arrimahaas wuxuu ka wareystay Faarax Cumar Nuur oo ah guddoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee FESOJ. si darteed wax badan aan iska bedelay waayo saxaafaddii marka xarig dil iyo waxaas uu ku socday aragtay oo xeerkii saxaafaddana aan la dhaqan gelinin sharcigiina maaragtay aan qabanin dadka qaarkii waxay noqotay marka cabsi badan inay jirto oo gobollada iyo caasimadaba inay aamusnaan badan ay galeen oo gabasho badan ay galeen. arrimahaas weli marka saxaafadda xorta culayskaasa haysta weli. taa markaan uga soo tago arrimaha gudaha, waxaan rabaa maanta dunida saxaafadda xorta waxay u astaysay maalinteeda inay kaga hadasho ka waranka arrimaha deegaanka iyo cimilada isbedelaysa. arrintaasi saxaafadda Soomaaliya haddii aad tihiin ma ku baraarugsan tihiin, iyadoo weliba Soomaaliya khatar weyn oo dhinaca deegaanka laga sheegaya inay ka jirto? aadaan ugu baraarugsannahay ururkeena FESOJ marka la dhaho waxaana naga caawiya arrimahan ansomta badana naga caawiya. waxaan aad maartay tababaro waxaan bixinaa oo la xiriira dhinaca deegaanka iyo wariyaasha iyo inay ka warramaan arrimaha deegaanka cimilada ka hadlaan, ilniina ka hadlaan. marka arrimahaas iyadoo ay jiraan iyo weliba arrimahaas sida qaabka looga hadlaya inay yihiin inaan disinformationka aad loola dagaalo oo deegaanka xaggiisa wax la xiriira marin habaabinta aad loola dagaalo. tababarada lagu bixiyana aan bixinana waxa waaye dad khubraa maartay haysanaa oo tababarada bixiya. wariyaashana waxaan u xulnaa dadka multimedia badanaa iyo dadka ku shaqayn kara arrimahaas oo ka warrami kara oo wax ka qori kara oo barnaamijyo ka samayn kara. xooggana dadkaasaan saaran waayo arrintan arrin xoog leh waayo oo muhiim aad u ah waaye.
production caadi maarata qof la wareystay keliya maaragtay looma tababaro waxaa loo tababaraa in arrimahan ka hadlaan meelahay ka dhacayaan iyo xataa digniino hore sida loo bixiyo maarata ay ka warqabi karaan wariyaasha oo ay heli karaan xogab baaris iyo sahan intay sameeyaan soo heli karaan waxyaabaha socda aad ula socdaan xaaladaha la socdaan hay-adaha maaragtay arrimahan ku lug lena inay la socdaan mar walba xiriir la sameeyaan oo xaaladaha isbedelka abaar markay dhacayso roob markuu badan yahay marka micnihii xaalado kala jiraan waxaasna la socda marka aadaan ugu baraarugsannahay inaan tababarana ku bixinan waa jirtaa oo dhalinyarada wiilali gabdhaba aan u tababarno oo hadda ay jiraan qaar badan oo wacyi fiican leh. waa gartay arrimaha deegaanka sida looga hadlo guud ahaan saxaafadda gudaha Soomaaliya waa ay ka yar tahay marka saxaafaddu ay ka hadlaysa arrimaha siyaasadda iyo waxyaabaha ku tacalluqa soo taa lama dhihi karo saxaafadda Soomaaliya waa mid uun siyaasadda ku maman oo tababarada aad sheegaysaan inaad qabataan aan muhiimadeedii iyo weli waxqabadkeedii la arag. waa dhici kartaa in muxuu ahaa boqolkiiba xoogaa muxuu ahaa meeshii la rabay aysan gaarin laakiin arrimaha siyaasaddana aad maaragtay weli wariyaal badana ku howlan waayo wariyaashii waxay u bateen wax laga hadlaba inay siyaasaddii noqotay ay u arkaan xildhibaan iyo shirar iyo wax siyaasadda ku xiran oo dadka weliba baraha bulshada maaragtay wariyaashii u bateen xaggaas u wada wareegan badankooda waxaana maaragtay saas u yeelaan waxa waaye inay helaan dad daawada dad macnihi dhegeysta oo isku darsada wixii disinformation misinformation wixii la arka la isku daro marka qaar badan oo wariyada xataa ku biiray citizen journalism barnaamijkan la yidhaahdo dadkay dareenkooda un ka hadla wixii arkaan un ka hadla marka youtuberskii wixii lagu biiray marka tababarada aan bixino marka waan aragnaa in muxuu ahaa dad badan oo in nalaga badan yahay weli waa aragnaa laakiin waxay u eg tahay inaan soo korayn sanadkii hore sanadkan waa ka ficneen sida tababarada aan bixinay iyo dadka wax ka qoraya arrimahan iyo tababar xataa dadka bixiyo waxaan sanadkii hore dadkii tababarka qaatay waxaan dhahnaa keena waxaa qorteen bal advance ah laga siiyey tababar la xiriir. waa gartay hadda meelaha qaar dalka waxaa ka jira fatahaado sanadihii lasoo dhaafay roobab yarayaa laga hadlayay hadda weli meelaha qaar waa laga degayaa roobabka maxay idinla tahay in aysan weli warbaahinta arrintaasi diiradda u saarayn oo keliya arrimaha siyaasaddaasi ay u muuqanayaan xalka muxuu idinla muuqan karaa si khatarta deegaanka jirta loo dareemo? taas waxay aad maaragtay muhiim ay noogu noqonaysaa inaan helno dad u go-a amaba wariyaal maaragtay muxuu aha aad multimedia amaba isku noqon karaa maaragtay meeshii aad uga soo warrami kara iyagoo qoraalkoodii iyo productionkooda dhan soo saaran waxyaabaha ay ka shaqeeyaan dhan soo saari kara oo laptopkooda wato kaameradooda wato tegi kara meesha marka tashiilaadkana waa qeyb ka yahay hay-adaha maaragtay oo bixin kara tashiilaadka weli xiriirkeena saas maaragtay ma aha oo haddaan la hadalna xataa inay bixiyaan meelaha qaarkood markay tegayaan in saxafiyiinta qaarkood ay ku marti qaadaan ay axyaan meelaha geeyaan xiriirada noocaasa weli naga dhiman inaan sii adkayno muxuu ahaa dadkiina siyaasadiin maarata weli waa danaynayaan gobolladoo kale marka la joogo hiiraan oo kale marka la joogo niman dhalinyaro aad u fiicana joogo marka arrimaha biyaha iyo fatahaadii laga hadlaayo iyo si fiican uga soo hadlo maaragtay heerka biyaha xataa markay badanayeen iyo markay yaraanayeen iyo xoogaa dadka ay aad u dhegeysanayeen warbixin u fiican bixin jiray dadkaas kalsooni badan aan siino oo si wariyaasheena ay meelaha ay tegayaan amaba meelo badan ay martiqaad ugu sameeyaan marka hay-adda maaragtay muxuu ahaa hay-adahan gargaarka maarata oo loogu talagalay inay gurmadka sameeyaan oo kale communicationkoodii mararka qaarkood iyo xiriirka maarata wariyaashii yaa gaabanaya. kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa faarax cumar nuur oo ah guddoomiyaha ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee fesoj waxaana u warramayay wariyahana muqdisho cabdicasiis axmed barrow. dhinaca kaleeto soo tebinta wararka la xiriira deegaanka ama dhulkan aanu ku noolnahay ayaa waxa ay noqotay shaqo halis badan sida lagu sheegay warbixin cusub oo la daabacay maanta oo jimco ah oo lagu soo beegay maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka. warbixintan ayaa waxaa lagu sheegay in boqolaal wariyaal ah 15 sannadood ee lasoo dhaafay qaar la weeraray qaar kalena lagu dilay xilli ay ku guda jireen soo tebinta wararka la xiriira isbeddelka cimilada macdan qodista iyo weliba xaalufka lagu hayo deegaanka.
lisa bryant ayaa warbixintan waxay ka soo dirtay magaalada baris. waa kan maxamed cabdi xasan. warbixintan ay wada diyaariyeen hay-adda unesco iyo sutaga warfidyeenada caalamiga ayaa bixinaysa sawir cabsi leh oo ah khatarta ay la kulmayaan warfidyeenada ka warrama arrimaha deegaanka, taasi ay u dheer tahay khatarta ka imanaysa kuwa diida iyo kuwa shakiga ka muujiya jiritaanka isbeddelka cimilada. golherme canela waxa uu madax ka yahay qaybta xorriyadda hadalka iyo badqabka warfidyeenada ay hay-adda unesco ee qaramada midoobay. xogta ugu walwalka badan ee natiijada guud waa in 70% warfidyeenadii la waraystay ay noo sheegeen in marka ay arrimaha deegaanka ka warramayaan la kulmaan ugu yaraan mid ka mid a noocyada gacanka hadal kaasoo aad u sarreeya. daraasadda ayaa lagu saleeyey waraysyala oo yeeshay in ka badan 900 oo wariye oo ka warrama arrimaha deegaanka, kuwaasi oo ku kala sugnaa 129 dal muddadii u dhaxaysay sannadihii 2009 iyo 2023. daraasadda ayaa muujinaysa sare u kac aad u sarreeya oo dhinaca weerarada ah, waana wax ka badan 40% shantii sane ee u dambeeyey. weerarada waxaa ku jira gacanqaad sida jirdil amaba xidhid, in la dacweeyo amaba in dhinaca internetka laga hagardaameeyo. 15 sane ee lasoo dhaafay baadhista ayaa lagu ogaaday in 44 wariye la dilay, 39 kalena la xidhay iyagoo arrimaha deegaanka ka warramaya. waa kan mar kale canela. afar iyo afartanka la dilay keliya 5 ka mida ayaa go'aan maxkamadeed laga gaadhay. markaa ma aha in tirada dilku ay sarrayso oo keliya ee waxaa sidoo kale sarreeya wax ka qabasho la'aanta marka laga hadlayo dilalkan. canela ayaa tusaale u soo qaatay dilkii Dan Phillips oo ah wariye u dhashay dalka Britain, kaasi oo baadhaya nabaad guurka lagu sameeyo kaymaha Amazon. Phillips ayaa helay hanjabaado in dil loo geysan doono ka hor intii aan la dilin. booliiska dalka Brazil oo ah dalka ay kaymaha Amazon ku yaalliin ayaa dhowr qof u xidhay dilkii wariye Phillips. canela oo sababta dilka ka hadlaya ayaa yidhi, marka koowaad waxay muujinaysaa in warfidyaanku ay ka warramayaan arrimaha deegaanka, taasina ay ka cadhaysiinayso shirkadaha waaweyn kuwa ay doonaan ha ahaadeene, markaa kadibna ay tan oo kala dhacdo. intaas waxaa dheer ka warramidda arrimaha deegaanka waxaa micnaheedu yahay in deegaano fogfog u wariyuhu tago. warbixintan la soo saaray ayaa muujinaysa in warbaahinta aan dhaqaalaha wanaagsan haysan iyo wariyaasha madaxa bannaani ay yihiin kuwa arrimaha deegaanka ka warrama, arrintaas oo ka dhigaysa kuwa khatarta u nugul. warbixintii lisa bryant ay ka soo dirtay magaalada baris waxaa soo jeedinayay maxamed cabdi xasan sandheere. hay-adda Save the Children ayaa waxay ku dhawaaqday in ka badan 140,000 oo qof oo ku nool magaalada Manaka ee dalkaasi Maali ay ku jiraan 80,000 oo caruur ah ay wajahayaan nafaqadarro iyo cudurro ay ugu wacan tahay go'doomin ay ku sameeyeen fallaagada xiriirka lala Daacish. hay-adda ayaa waxay sheegtay in xayiraadani uu socotay muddo dhowr bilood ah ay sababtay in sahaydii iyo raashinkii ay gabaabsi noqdaan, iyadoo hay-adaha gargaarka iyo dowladda Maali ay ku dadaalayaan gaarsiinta dadka waxyaabaha asaasiga ah. warbixin uu qoray wariyaha v o a maxamed yuusuf waa kan oo soo jeedinaya xuseen barre aadan. bayaan ay soo saartay toddobaadkan ayaa hay-adda caalamiga ah ee Save the Children waxay ku sheegtay in haddii aan si degdega gargaar loo gaarsiin magaaladaasi in dhowaan la arki doono dad badan oo macaluul u dhimanaya. hay-addan oo fadhigeedu yahay magaalada London ayaa sheegtay in qaar ka mid ah shaqaalaheeda oo u tegay dalka Maali inay qiimeeyaan baahiyaha dadweynaha ay weli ku xayiran yihiin gudaha magaaladaasi in ka badan 3 toddobaad. xayiraadda magaalada Manaka ayaa daba socota go'doomin lagu sameeyey magaalada kale ee Timbuktu, taas oo bilaabantay bishii August ee lasoo dhaafay, waxaana ku xayiran in ka badan 136,000 oo qof, kuwaasi oo 74 ka mid ah ay caruur yihiin. laakiin magaalada Timbuktu ayaa waxaa la gaarsiiyey qaar ka mid ah sahayda gargaarka sida ay sheegtay hay-adda Save the Children. David Otto oo ah falanqeeye dhanka ammaanka ah oo fadhigiisu yahay dalka Nigeria ayaa sheegay in joogitaan la-aanta dowladda ee waqooyiga Maali ay sii adkeynayso dadaalada gargaarka iyo gurmadka. Humanitarian activities within that region also has been very, very much limited. Not just
howlaha bini-aadminimo ee gobolkaasi ayaa sidoo kale aad iyo aad u xadidnaa. ma aha oo keliya inay sababtu tahay nabadgelyo xumida, taasi oo ah mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan. dowladda militariga ayaan awood u lahayn gelitaanka gobolkaasi, taasi oo sii adkaynaysa shaqadii ay qaban lahaayeen hay-adaha samafalka. hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in maali ay la il daran tahay dhowr arrimood oo isbiirsaday, kuwaasi oo ay ugu yihiin kooxaha xagjirka ah, caqabadaha dhaqandhaqaale iyo isbeddelka cimilada. in ka badan 7 milyan oo qof ayaa u baahan gargaar bini-aadantinimo, waxaana xaaladda ay ugu daran tahay deegaanada ay colaaduhu saameeyeen ee waqooyiga iyo bartamaha dalka maali. hay-adaha gargaarka ayaa ka digaya in xaaladdu ay kasii dari doonto bisha juun, markaasi oo ku dhowaad 50,000 oo qof ay la kulmi doonaan cunno yari una baahnaan doonaan gargaar deg deg ah. kevin odor waxa uu ka dhigaa sharciga dembiyada caalamiga ah jaamacadda farsamada ee kenya, waxaana uu sheegay in gaajaysiinta ulakaca ah ee dadka ku nool magaalada menaka ay tahay dembi dagaal. blocking aid from getting to the people is tantamount to exposing them ka hortagga gargaarka la gaarsiinayo dadka waxa ay la mid tahay dil. sidoo kale waxaa dembi ah qaab kasta oo ka hor istaagaya in ay nolol buuxda ay ku noolaadaan. marka kuwani runtii waa dembiyo dagaal. militariga maali ayaa dhowaan bilaabay howlgal ay si wada jir isaga kaashanayaan dowladaha kale ee militarigu ka taliya ee dariska yihiin ee burkina faso iyo niger, si ay ula dagaalamaan kooxaha xagjirka ah iyo kooxaha kacdoonka ka wada qaybo ka mida galbeedka afrika. ciidamada militariga ee maali ayaa sheegay in howlgalladan ay u arkaan mid lagu fududeynayo dhibaatada ay dadkooda ku hayaan kooxaha hubeysan. si kastaba haatee dowladdu way awoodi weyday in ay jebiso go-doominta menaka iyo tumbuktu midkood. dhanka kale dowladda ayaa ku amartay howlgalka qaramada midoobay ee dalka maali inay xiraan xafiisyadooda ayna joojiyaan taageeradii ay siin jireen shacabka. oto ayaa sheegay in badbaadinta nolosha iyo quudinta dadka aanay ahayn mudnaanta koowaad ee dowladda militariga ee maali, siduu hadalka u dhigay. dowladda hadda waxa ay diiradda saaraysaa wax ka qabashada arrimaha ammaanka halkii ay si dhaba ay u eegi lahayd arrimaha bini-aadminimo ee aaggaasi ka jira. taasi waa sababta aad u arkayso dadka ku nool gobolkaasi oo ku nool duruufo aad u adag. hadda dowladdu waxay xoogga saaraysaa inay awooddeeda ay ku xoojiso dhinaca militariga iyo difaaca, halkii si dhaba gargaar dhaqaale ama mid bini-aadamnimo loo siin lahaa dadka ku nool aaggaasi. khubarada ayaa ka digaya in rabitaan la-aanta dowladda maali ee ah in ay la shaqayso hay-adaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ay kasii dari karto xaaladda bini-aadamnimo ee dalkaasi ka jirta. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. warbixintaasi waxaa soo jeedinayay xuseen bare aadan, waxaana soo diray wariyaha v o a maxamed yuusuf.